maadaama dhawaan golihii baarlamanku sida ugu dhaqsaha badan uu furmi doono guud ahaanba sharciyadii dalka hadday tahay xeerkii diiwaangelinta madaniga ahaa iyo xeerkii diiwaangelinta codbixiyaha iyo xeerarkii doorashooyinka madaxweynaha baarlamaankaba maadaama dhawaan la diyaarin doono lagana wada hadli doono waxaan jeclay inaan halkan fariin uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda iyo golayaasha qarankaba inaanay iloowin dadiyowga laga tirada badan yahay ee dalkan ku dhaqan ee xaqa u leh inay ka muuqdaan guud ahaanba golayaasha qaranka maadaama oo doorashadii hore golayaasha deegaanka aynu ogeyn oo ka fuuta baarlamaanka ee soo socota in aanay wax kursiya ka helin guud ahaanba degmooyinka dalka laakiin markaad golayaasha deegaanada laga yimaado baarlamaanka iyo guurtida iyo golaha wasiirada miyaad waxba ku lahayn maya golaha guurtida waxaanu ku leenahay hal kursi oo ah kii 1997 halnaan beeleedkii aanu ku helnay kaasunbaa ilaa imika jooga oo dee saad la socotaba axmedow golaha guurtidu weli xeerkiisii iyo doorasho midna muu gelin waxaa fadhiya un beelihii 97kii lagu soo dhisay balse golihii baarlamanka ee 97 beelaha kursigii aanu ku lahay waxaanu ku weynay hanaankii doorasho golaha wasiiradana xubin wasiir ku-xigeenun baanu ku leenay ma lihin weli maanaan gaadhin darajada full minister waa xog naga maqan waa xaqaannu qarankayga xaq ugu leenahay waa xaqaanaan golayaasha qaranka cidna aanay hadiyad noo siinayn waa waxaannu leenoo naga maqan oo la rabo inay gartaan madaxda qaranku oo ay dalkan iyo dadkani si uu hana qaado qarannimadiisoo taamana uu gaadho in hoos la ysku eego idinka la fahantiina dadkan la haybasoco amase beelaha lagada tirada badanyay waxaa lagu canaantaa inay iyagu iska soo hor jeedaan oo masalan doorashadii deegaanada oo kale magaalooyinka halkii aad qof isku raaci lahaydeen oo kale magaalo walba aad dad badan aad sharaxdeen oo idinka la fahantiinu kala tafaraaruq tihiin weligayba waxaan u taagnayn axmed oo ummaddan waa ummad centuries maskaxiyan iyo moraliba u dhimatay siday ummaddani ummad u noqon lahayd baanu u taagnayn habeen iyo maalinba mana dadaalayn laakiin tala xumaantaas way iska jirtaa waana mid guud ahaanba ummadda soomaaliyeed haysata golaha wakiiladoo kale oo iminka shuruucdan ay hor taallo ma u tagteen oo idinka la fahantiinu ka gasheen olole saxaafadda la hadlasaan maya tani waaba taan maanta rabo inay dee ogaadaan oo saxaafaddu codka ummadda gudbiya sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inay dhegahooda ku dhegaystaan inta ay ka baxaan buuqa jira maanta in ay arrintanna inay taagan tahay oo weliba mid sensitive tahay hadday tahay fulinta oo madaxweynuhu hormuud ka yahay iyo hadday tahay golaha baarlamankaba farrintan waxaanu u diraynaa inay xasuusnaadaan maadaama golaha la furayo shuruuc badanna dib u eegis lagu samayn doono gaar ahaana kuwa doorashooyinka waxaad doonaysaa in koota la idiin sameeyo absolutely maadaama aanu golayaashii deegaanka annagoo soo bixi kari lahayn talaxumaanta aad sheegtay ay halkaana dhigtay waxaanu leenahay adeerdee talaxumaan dadka lagagama tago waxa weeye dadkan arrinkoodu waa issue adag oo u baahan in dhinac walba laga dhayo marka waxaan soo jeedinayaa kootadii madaxweynuhu labada gole maalintii uu la hadlaayey uu ballan qaaday ee uu u diray imikana dib ha ugu celiyo golaha baarlamaankuna waa inay ogaadaan qadariyaan ummaddani 6 gobol iyo degmooyinka dalkan oo dhanba way degan tahay mudane aanay xaq u lahaynna ma jirto iyagaana maanta goolihii fadhiya waa inay ummaddan qadarin weyn u sameeyaan baanu leenay iyaguna